السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي kusoo dhawaada channelkayga Nahiya Cooking. waxaan sameysanaynaa basbuusa inta waxaan ku haystaa sokor, koob sokor waaye. koobka oo si fiican u buuxin waa koobkan hadda wuu yar yahay laakiin zaid uma buuxo, half waaye meelahaas maraya because sokor kale hodhow korka ugu shubi doonaa basbuusada. intan waxaan ku haystaa yogurt vanilla waaye. intan waxaan ku haystaa qumbaha qalalan koob halfkiisa. intan waxaan ku haystaa saliid caday waaye koob halfkiisa ayadana inta ku haystaa. intan waxaan ku haystaa koob oo semolina ah ama galeyda yelowga ah oo la shiiday, galeyda jaalaha oo la shiiday waaye. semolinada anaa guri ku samaystay, ma soo gadin, anaa guri ku diyaarsaday. galeyda soo gatay kadibna waa shiitay. qumbaha saan uu egyahay kan waaye, qumbaha isticmaalayo waa kan, qumbaha qalalan oo supermarketyada lagu gado waaye. intan waxaan ku haystaa liin dhanaanta qolofteeda kore, qolofta koran ka soo xoqday. gudahan ha gaarsiin markaa xoqaysid, gudaha haddaa gaarsiisid hodhow qaraar uu kaa noqonaa keega. qoloftan koran soo xoqday, biyaha hataa waa isticmaali doonaa ila arki doonto insha allah. intan waxaan ku haystaa loos gadaala hodhow ka isticmaali doonaa insha allah. intan waxaan ku haystaa baking powder hal qaado ah, qaadada cuntada lagu cuno kusoo cabirtay. intan waxaan ku haystaa vanilla carfiso waaye haddii aa rabin ama jecleen, waxaa ku bedelan kartaa heel shiidan. intan waxaan ku haystaa 3 xabo ukun ah. hadda marka hore waxaa karsanaynaa sharaabka la waraabin lahaa basbuusada. marka hore sokor iyo biyo isku soo karinaynaa, hodhow markay basbuusada ovenka soo baxdo aan ku shubi doonaa insha allah. haddana dibka aadaynaan keenaa insha allah. waxaan soo saaranay inta koob sokor ah iyo 2 koob oo biyo ah dibka soo saaray. waxaan ku soo darsanaynaa liin dhanaanta biyaheeda. liin dhanaan inta ku miirinaya biyaheeda ku darsanaynaa insha allah. liin dhanaanta saan ayadoo ay ku ridi kartaa laakiin qoloftan hodhow qaraar ay noqonaysaa, keega qaraar uu ka noqonaya marka biyaha bis ku darsanaynaa insha allah. liin dhanaanta oo qolofta aan kasoo xoqday biyaheeda isticmaalaya hadda, wax kale maahan, tiile isticmaalaya. biyaha iyo sokorta waa isku soo karkaraan, markay isku soo karkaraan aan isku soo laabanayna, diyaar noo noqota isku soo laabanayna insha allah. asxaabtayda waxaan kusoo shubanaynaa inta ukuntii kulli waxaan hal mar aan isku dardaraya. waxaan kaloo kusoo darsanaynaa sokortii, wax la kala reewayo ma lahan. sida keeg oo kale ukunta ma qasaysid, hal mar waxa dhan isku qasaysaa. waa keeg oo kale laakiin bedelka burka waxaan ku bedelnay semolina galeyda yelowga waaye, galeyda jaalaha oo la shiiday waaye. waxaan ku darsanaynaa yogurtki, yogurta isticmaalay kan waaye vanilla waaye, 250 miligram waaye laakiin wax yar ka reebi doonaa. qiyaasta koob halfkiisa u baahanahay. waxaan kusoo darsanaynaa saliidi, marka hore intaana wax yar isku qasaynaa. waa sokorti saliida yogurtka iyo sokorti saliida iyo yogurtka waaye.
waxay isku soo qasay waxaan kusoo darsanaynaa qumbihii saamulinadii waxaan kaloo ku darayaa baking powder liin dhanaanta qolofteeda ama diirkeeda kore vanilla waxyar inay jilcantaa umaleysaa. waxyar waxaan kusoo darayaa oo semolina ah. waxaan kusoo darsanaynaa waxyar oo semolina ah ama galeyda shiidan. biyo iga noqota aniga haafaan kusoo darsaday hadda. koob iyo haaf waay hadda semolinada ama galeyda shiidan. galeyda jaalaha oo shiidan waaye semolina, wax kale ma ahan. semolinada anaa guri ku samaystay. galeyda yelowgaa soo gatay mashiinta oo lagu shiiday heelka iyo waxyaabaha qalalan aan ku shiiday. ciidda intaan reediyaan soo waayay. supermarketka igu dhowna waan ka soo waayay. dukaamada Soomaalidana waan ka soo waayay. marka waa u fakiray waxaa isdhaahdaa guri ku samaysan kartid tijaabi. bal waan tijaabiyay, waan idin soo geliyay channelka saa u samaystay, waa idin la wadaagay. ka faa'iidaystay insha Allah. marka waa qasaynaa hadda. koob iyo haaf ay noqotay galeyda. koob markaa ku shubay biyo iga noqotay. koobku waa igu yaraaday marka haafaan kusoo darsaday sida arkayseenba. marka hadda waa isku soo laabanaynaa. saxankan saliid soo marsanaya. saxankaanaan ku gelinaa. kanaa rabay inaan ku geliyo dhaladaanaa rabay inaan ku gashto, laakiin waa ila yaraatay. inta hodhow markuu ovenka la geliyo wuu soo qamiiraa somaan kor u soo kacaya keega. marka inuu soo daataa laga yaabaa. saxanka cariiri igu yahay markana aan ku gashanayaa. saliidaan marinayaa hadda. inaad si fiican saliid isaga marisid. saliid fiican inaad iska marisid waaye, haddii kale waxaa laga yaabaa inuu saxanka kaaga dhigo keega dhowdi. saliidaa si fiican u mariyay. waxaan kusoo dadaadinayaa bur yar. burka iyo saliidda waxay kaa caawinayaan hodhow inuusan saxanka kaaga dhigin keega. foornada waa isii shidan tahay. ovenka waa ii shidan yahay 180 kor iyo hoos uga shiday. sidii keegoo kale le waaye 20 daqiiqo ku jiraya insha Allah. hadda waxaan kusoo shubayaa keega wixii noo diyaarsanay. isku sintid waaye. ina isla sintid oo saxanka dhan wada gaarsiisid. saxankan wuu weyn yahay laakiin kana ii dhaama kii yaraa. hadda waxaa laga yaabaa inuu soo fuuro oo soo daato. marka kan weynaan ku gashanaya intuu igu yaraan lahay. dhulka jagjag oo ku siisid waa si oo isla sinmo.
ovenkan gelinayaa markuu nooga soo baxaa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabteeda waxaan ka ilaaway loos soo saarnayna saas la soo saaraya isku soo laabanayna waan soo saaray looska asxaabteeda ovenka soo gelinaya hadda waa isku soo laabanayna insha Allah. sokorti waatan ay biyihii way isku soo dhalaaleen marka hadhow basbuusada markay oven ka soo baxda korka ugu shubi doonaa. basbuusada marka ovenka laga soo bixiyo waa qaleel laazim waaye inaa ku dartid biyahan biyo sokor lagu karkariyay waaye waa biyo sokor lagu karkariyay liin dhanaantina waa kusoo miiray sida arkayseen liin dhanaan iyo biyo iyo sokor isku soo karkariyay waaye koob sokor iyo 2 koob oo biyo ah iyo xabad liin dhanaan ah liin dhanaanta biyaheeda isku soo karkariyay hadhow basbuusada korka ugu shubi doonaa ila arki doontiin insha Allah. Mono soo karay asxaabteeda keegi waatana basbuusadii dabka waa ka soo bixinay maxaa la dhahaa ovenka. hadda waxaan ku shubaynaa juice-ka aan karinaynay sokorta aan karinaynay sokorta iyo biyo aan isku soo karinay aan ku shubi doonaa. bismillaah inaa qoysid waaye ina baasha qaleel waaye sidii lagu macuni karo marka inaa biyahan ku shubtid laazim waaye mast waaye inaa wax qoyan ku shubtid marka ovenka soo bixisid. miskiinta way ooman tahay soo maahan qofka duu oomanya biyaha la siiyaa soo maahan basbuusada marka way ooman tahay iyadana biyaha siinaynaa ma fahanteen. anoo soo qabowdo markay soo qabowdo isku soo laabanayna insha Allah. waa jaranayna asxaabteeda way noo soo qabowday. bismillaah saanan ges u jarayna saanan soo jaraya ممكن اقص الطعم عليها لكن زائد الماء صحن صوص صارنايا اسكو لابانينا ان شاء الله. sidaan inoo soo baxday asxaabteeda quruxda badan ma sha Allah caarafta ka soo baxaysa liin dhanaanta qolofteeda diirkeeda kore caaraf waa cunto ku karsatay soo carfaya atarada xataa laga sameeyaa soo maahan. ما شاء الله تبارك الرحمن عرفت كسوة بحس وروح ما شاء الله كفاية ليست أصحابتي إذا هدي أنا سبتاي سبسكرايب نوصار هدي أتهرنا لجوكتي فيديو لايك صار شير قري أصحابتي هذا لو بدك إن شاء الله وما تنتين أصحابتي إذا كفاية ليست. سلام.